asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhawaada janankayga saasi cooking. magacaygu waa Maryan. maanta fideogeena wuxuu ku saabsan yahay sida biyaha bariiska loogu dheeraysto timaha iyadoo natural ah oo maaragtay aadan daawo iyo waxba aadan iska marinin. bariiska sida rumaantii sidaan ognahay waa maxay ahayd sheeg dhulka uu ka baxay dabiici ayuu dhulka uga soo baxay sida runtii biyihiisana maxaan ku raahdaa sheeg aad iyo aad ayay timaha ugu fiican yihiin. sida runtii waa bariiska waxaan ku dhihi karaa maadooyin badan ayaa uu leeyahay oo timaha u fiican. haddii aad timahaaga aad ka cabanayso qaleel iyo maaragtay ay timahaaguna ay hoosta ka siibanayeen aflaaqo maxaan ku raahdaa waxaan ka codsanayaa inaad bariiska biyihiisa aad isticmaasho. sidaad u isticmaalaysaa waaye biyaha bariiska waxaad u isticmaali doontaa sidan. bariiska horta sida banaan wuxuu leeyahay bariiska waxaa ku jiro noocyo badan ayuu leeyahay bariiska. bariisku wuu kala fiican yahay maasha allah tabaarakallah. bariiska oo ka yahay oo ka wasaq badan yahay maaragtay dheecaan saa'id ah oo ka leeyahay timaha wuu uga fiican yahay. bariiskaas ayaa timaha u fiican oo maaragtay aan dhahno markaan dhaqayn waa wasaq badan yahay aan dhahno bariiskaas ayaa timaha u fiican. timuhu waxay ka helayaan maadooyin badan oo maasha allah tabaarakallah ah ayaa bariiskaas ku jiro oon caadi ahaynin. timaha hadday maaragtay ay qaleelka ahaayeen qaleelka way kaaga ba'ayaan. haddii hoosta ay kasoo fuqi jireen maaragtay hoosta ay maaragtay kasii siiba jireen way kaaga ba'ayaan. timahaaga markaad saas gacanta u geliso haddaadna jeclaysa jirno qaleel qararaf ay ahaa jireen naciim smooths yahay kuu noqon doonaan insha allah. maasha allah tabaarakallah. bariiska waxaa loo isticmaalaa siyaabo kala duwan oo maasha allah ah. bariisku wuxuu qani ku yahay fitamiino badan ayuu qani ku yahay oo timaha ay u leeyahay biyihiisa ay u leeyihiin. timuhu way ku dheerdheeraadaan way ku qurux badnaadaan siibadka way uga baaba'aan sababtoo ah bariisku wuxuu haystaa fitamiino oo maaragtay sheegayaan ku jiro biyahaas dheecaanka oo laga dhaqay oo timaha aad iyo aad ugu fiican. fitamiino aad iyo aad timaha ugu wanaagsan ayaa ku jira biyahaas oo maaragtay aad iyo aad u macaan sida fitamiin A sida fitamiin A mineraala maada la yiraahdo amino acid ayaa ku jiro bariiska biyihiisa. laba maadan waa loo isticmaalaa bariiska biyihiisa inta maaragtay weel lagu shubo adiga bakeer camal aad weel ku shubato oo xabad liina jirtid oo korkooga ridid oo biyo ka buuxisid ama meel dhigaa 24 saacadood mana ka shiiray sababtoo liintii carafteedii ka soo carfaysa markaad aad saas u uriso liinta maasha allah ka soo carfaysa marka shir makaaga sameynaya tinta waxaad sameynaysaa haday 2 tahay iyo haday 3 u dhigi kartay hadda 4 u dhigi kartay hadba tintaada siday la'agtaad u dhigaysaa biyaha si fiican ugu radinaysaa. markaas biyaha si fiican ugu radisid waxaa jirta bac oo dukaamada laga soo gato oo madaxa lagu xirto hadii ay isla markaas gurigaaga aysan oolinin bacdaas waxaad sameynaysaa bac guriga ka weynaysid bacdaas aad ku xiraysaa madaxa. markaad bacda madaxa ku xirto 5 saacadood ayay kuugu jirayaan. 5 saacadood markay kuugu jiraan waad iska dhaqaysaa. markaad iska dhaqdo oo nadiifiso madaxaaga sas markaa gacanta u geliso macaan aad ka dareemi doontaa maasha allah tabaarakallah. waxaan ka codsanayaa inaad ka ordinin weegi aad 2 jeer aad isticmaasho. maxaan ku raahdaa sheeg bishina aad natiijadiisa aad aragto waad arkaysaa weegi baad dareemay laakiin marka sidoo u dheeraanayo iyo midabkiisa sidoo isku bedelayo iyo markaad bil joogto ayaad arki doontaa insha allah. maadada labaad oo loo isticmaalna waxay tahay iyadana xoogaa bariis ayaad waxaad ku shubaysaa digsiga dabkaad saaraysaa xoogaa biyaad ku shubaysaa 2 jeer markuu soo gudoomo waxaad sameynaysaa waad ka gadinaysaa dheecaanka ka soo baxa aad soo qaadanaysaa dad xoogaa qaboojiso aad madaxa marinaysaa sidoo kale bacdiyad sidoo kale ugu duubaysaa maradiyad sidoo kale ugu duubaysaa ka bacdi waad iska dhaqaysaa. haddaad iska dhaqdo maasha allah tabaarakallah timahaaga quruxda bal isoo warsa aniga waxaad tiraahdaa comment meeshaas iigu soo qor Maryanay beenaad ii sheegtay iyo Maryanay run aad ii sheegtay 7 biloodan aan maxaan ku raahdaa isticmaalaya maxay ahayd ii sheegeen bariiska
aad iyo aadan uga helay runtii been ma idin sheegaya anigana ii aamina ilaahayna aamina aad iyo aadaad uga heli doontaa timihii oo kuu baxay oo kuu dheeraaday midabkooda qurux kuu noqdo shayna aad ka dareemayso markaad saas gacanta u geliso markaad fiiriso birq aad ka dareemayso indhahaaga markaad ku aragto qurux markaad gacanta gelisana uu qalbigaaga jeclaysanayo ayaad isku arki doontaa insha allah soo baroobeeya insha allahu tacaala maasha allah tabaarakallah fideogeena maanta intaas ayuu ku egyahay intaan fideo lamida aan ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu